habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh qodobada caawa idin hayana waxa kamid ah Puntland oo qabatay rag xiriir la leh kooxaha argagixisada ah iyo sidoo kale qodob kale oo ku saabsan farmaajo oo si adag uga hadlay xaaladda dalka iyo warbixino kale dheeraad ah balse marka hore wax ka codsanaya daawada inaad muuqaalkan leeyga saarto YouTube-ka ku soo biirto oo subscribe dhahdo gabalelkana furto si ay ku soo gaaraan warbixinada maalinlaha ay halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo ciidamada booliska Puntland oo war soo saaray ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen 3 eedeysane oo loo haysto falal la xiriira moral galinta iyo taageero muujinta kooxaha argagixisada ah 3 eedeysane oo magacyadoodu ay kala yihiin Macalin Cabdulqaadir Cabdisalaan Siyaad Cabdulqaadir Dheere Caamir Cabdi Muuse Cabdi iyo Fahad Maxamed Bashiir ayuu booliska Puntland ku soo eedeeyay moral galinta iyo taageersiinta ay u muujiyeen kooxaha khawaarijta ah ee shabaab iyo sidoo kale Daesh eedeysanayaasha ayaa lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin moral galinta iyo taageersiinta kooxaha khawaarijta ah booliska Puntland ayaa xaqiijiyay in eedeysanayaasha hadda ay ku jiraan gacanta ciidamada ammaanka halkaasna lagu wado baaritaano dheeraad ah ayaa lagu yiri warbixin ay soo saareen booliska Puntland ayaa sheegay in ay baaritaano ku wadaan 3 eedeysane waxayna bulshada uga digeen faafinta wararka aan munaasibka ahayn oo la xiriira kiisaskani iyo in ay mas'uuliyad qof walba ka saarsan tahay waxa uu ku soo gudbinayo barihiisa bulshada saameyn ay ku yeelan karto ammaanka dalka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada booliska Puntland dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war uu soo saaray uga hadlay dagaalada ka dhanka ah kooxaha Al-Shabaab iyo sidoo kale Daesh Farmaajo ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro shabaab iyo Daesh uusan kala lahayn mucaaradnimo iyo muxaafidnimo ee uu yahay waajib qaran oo saarsan qof walba oo Soomaali ah waajib ayayna ku tahay dhamaanteen inaynu garab istaagno ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee geesiyada ah kuwaas oo kula dagaalamaya cadawga dhammaan furimaha dagaalka iyo goobaha ay weerarka ku soo qaadeen arrintaani ma aha mucaaradnimo iyo muxaafidnimo ee waa waajib qaran iyo mas'uuliyad taariikhi ah ayaa lagu yiri war saxaafadeed uu soo saaray madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed iyo xal u helidda khilaafyada siyaasadeed kaas oo uu sheegay inay ka faa'iideysteen khawaarijta iyo sidoo kale kooxaha shabaab waxa uu ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay garab istaagaan ciidamada dawladda iyo kuwa Puntland ee dagaalka kula jira kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh isla markaasna laga fogaado marin habaabinta ay faafinayaan kooxaha shabaab iyo sidoo kale Daesh waxaan mar kale adkeynayaa sida ay muhiim u tahay in la mideeyo dadaalada lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ah si Soomaaliya ay u hesho nabad waarta dadkeenuna ay ugu noolaadaan sharaf iyo qarannimo buuxda ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dad badan ayaa la yaabay sida uu uga hadlay madaxweyne Farmaajo dagaalada dalka uga socda isagoo oo meel iska dhigay siyaasadda adag ee kala dhaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh oo raba inuu dalka hadda ka qabto doorasho qof iyo cod ah oo isagu maamulanayo dadka Soomaaliyeed ayaa ku amaanay Farmaajo hadalkan mas'uuliyad ku dheehan tahay uu ku garab istaagay ciidamada dalka Soomaaliya ee dagaalada kula jira khawaarijta shabaab iyo sidoo kale Daesh